ururka Buuhoodle Support Group oo ah urur ka shaqeeya horumarinta deegaanka Buuhoodle ayaa baaq nabadeed u diray beelaha dhawaan dilku ku dhexmaray deegaanka Buuhoodle. Afhayeenka ururkaasi Xuseen Maxamed Turtur oo haatan ku sugan wadanka Imaaraadka Carabta ayaa la soo xiriiray warbaahinta waxaana uu halkan baaq uga diray waxgaradka deegaanka Buuhoodle guud ahaantii. علي ومحسن تهاي إن راديو صحافة دبا أي عاد بردي سلامة يا أديك إيو ديجان كي صحافة دبا وعن شاء الله إن أن كهذا الله أنا باق كسر درينا شغالين كي وجودن بيجي أما جاي بكرة على ديجان كا قاسة قوة وجودن بيجي فان وحن لين هاي يعني دورنا إن كهذا الله أنا جو كهذا يا Afhayeenka ahna Buuhoodle Support Group wakiilo uga ah qurba joogta reer Buuhoodle ama tadulbahante arrinteedu saas ku saabsanta marka dad badan baa Buuhoodle Support Group aan fahmayna adoo soo koobaya muxuu yahay Buuhoodle Support Group sano Buuhoodle Support Group waa urur iskaashaday oo reer Buuhoodle oo dhan ka kooban deegaankana run ahaantii waxyaalo fara badan ka qabtay wax ku ool ah wadooyin leh MCH dad badan ka caawiyay welina u taagan deegaanka wax ka qabadkiisa Buuhoodle Support Group macnihiisu waa sidaa maanta muxuu yahay baaqina hadda aad la soo xiriirteen adirasaan iyo ku wajahan yahay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما باقي يقول حكو سليسان يهي رعانتي مركو وهو الرئيسة shaqaaqooyinkii ka dhacay deegaanka Buuhoodle agagaarkiisa iyo gudihiisaba marka ugu horeysa dhibaatooyinka waan uga tacsiideynaa ragga qaaliga ah runtii aynu ku weynay waan uga tacsiideynaa ehelkii iyo qaraabadii iyo gobolka dhammaantood waan uga tacsiideynaa aniga oo uga wakiil ah qurba joogta reer Buuhoodle raggaas oo runtii deegaanka qaali aad ugu ahaa inta ka bacdi hadaan ka gudbo waxaan u mahad celinaynaa oo si gaar ah ugu sii mahad celinaynaa guddiga ishalqaantay saddexda qaybood ah koob iyo 20 ah ee ku dadaashay dhibkuna inuusan halkaa dhaafin dhibaatadii dhacdayna xal ay ka gaadhaan iyagana si gaar ah baan ugu mahad celinaynaa iyaga iyo cuqaashooda iyo isimadooda iyo garboodkooda iyo culimadoodaba si gaar ah ugu mahad celinaynaa inta haddaan ka gudbo waxaan jeclahay laba kelmadood oo bacda tacsiidaas raacinayno oo midna ku wajahan yahay indergaradka ama labeenta reer Buuhoodle midna ku wajahan yahay qurba joogta reer Buuhoodle ama tadulbahantaba aan idhaahdo yaan jeclahay inaan raacsano ugu horreyntii labeenta Buuhoodle waxaan leenahay horta haddaanu nahay qurba joog deegaanka dhibaatada ka dhacaysa si gaara qofku markuu goobjoog yahay iyo markuu ka maqan yahay aad marxaladiisu kala duwan yihiin bini aadankuna dabadhidu ku fariistaado meesha aanu ku fariisanayna ama ku xisaabtamayna waa Buuhoodle ummadda caalamka qada ku nool xanuunka coronavirus ama COVID-19 ayaa helay oo wada wareeriyay anaga waxa noo sii dheer adooyinka ka dhacaya Buuhoodle arrintaasi runtii qof kasta meesha uu joogo dib gaar bay ku haysaa walwal gaar bay ku haysaa waxaanu leenahay intii aad qabateen jazakallahu khayra jazaa way idinka mahad celinaynaa waxaad soo ogaataan bilaadanka wax ku nool qolada gudaha ku horeynaya bilaadanka wax ku nool nolol khiyaali ah ay jirto waxaad moodaa deegaanku inuu ku nool yahay nolol khiyaali ah nolosha khiyaaliga macnaheedu waa maxay ummadda meesha joogta labeenta u ah dadaalka ay sameynayaan iyo waxqabadka ay sameynayaan waan uga mahad celinaynaa waana ku siboorsannahay oo run ahaantii aad baan usoo dhaweynaynaa laakiin ogaada bilaadanka sida wax saa u nool ama noocaa u dhaqma run ahaantii wuu ku yar yahay caalamka dad cawaana mooyaane sidaa daraaddeed waxaan jecelahay odayaasha haddaad tihiin indergaradka haddaad tihiin cuqaasha haddaad tihiin isimada culimada bayc mushtariga waxaanu usoo jeedinaynaa oo si gaara aanu u faraynaa oo uga codsanaynaa nolosha hadda noocaas
inayna bini aadamku ku noolaan karayn sidaas hadda aad ku dhaqmaysaa ninkoo dadaalaya waxaanu idin leenahay warnimayo dabatagaa taqaanina ka hortaga ila idinka bini aadamku wuxuu ku nool yahay systemkaasi ama system maamul ah ha noqdo oo ummaddu ay samaysato ama system diini ah oo de kitaabkeena islaamka ama qur-aankeena ha noqdo yani ummaddu waxbay ku wada nooshahay wax sidan wax ka nool oo seexo oo soo toosoo foofo soo hoyaahay ma uu jiro idinkaa isku koobay inaad dadka deegaanka maxkamad u noqotaan oo booliis u noqotaan oo si ay maxay ahday aad u noqotaan maxkamad u noqotaan nidaamada noocaas ee aad idinku isku koobteen warde ma wada qaban kartaan haddii aad isku daydeen inaad ka daba tagtaan ka hortagiisana barto oo intaan waxaana dhicin ila ka dabatagaba waa taqaani intaan waxaana dhicin tolka ka hortaga taana intaasaan odhanayaa qurba joogta waxaan leeyahay qurba joogta deegaanka u dhalatay ama ta Buuhoodle ha noqoto ama ta gobolada ha noqoto dhibaatooyinka deegaanka ka dhaca inta ugu badan eedeeda innagaa layna saaraa waana wax jira dhibka dhaca waynu buunbuuninaa magacyaynu u samaynaa waynu ka qayb qaadanaa dhaqaalaynu gelinaa hadda waxaad ogaataan inagu markaynu qurbaha ku daalo meesha aynu badhida dhigaynaa ama aynu doonaynaa inaynu wixii aynu soo helnay ku cunno waa deegaankii haddii aad dhibaato ka shaqayso ama aad dab ka ololiso ama aan wax aan habboonayn aad ka qabato haddii adaa u qoolana ogow arrinta halaga digtoonaado looga bixi karayaa oo daqiiqado kooban baa ku harsan xuseenow way noqotay arrintani oo dilalka aanada iyo qabiilada iyo waxaad moodaa deegaankeena inay kusoo badanayso system maamulo kama jiro daqiiqad baad haysataay maxaynu kaga bixi karnaa baad leedahay waad mahadsan tahay waxaynu kaga bixi karnaa dee adigoo isku tashada oo weji kastaba ku tasho oo ama ha noqoto qofka wax dilo oo maanta cuqaasha iyo isimada intay isu yimaadaan one day saxeexaan inaan qofkii qof dila aan dib loo cafiyin magna laga bixin ayaa lagaga bixi karaa ama in system iyo maamul la samaysto labadaasa lagaga bixi karaa maamulo badan baa Somaliland iyo Puntland oo kale iyo dowlad deegaan iyo waa la sameeyay haddana ma socon karaan ma isleedahay dadku iyaga mid ay leeyihiin hadday samaystaan ma isleedahay waxba iska bedeli karaya ugu dambeyntii sida aad iyo aad baan ugu kalsoonahay haddii ay daacad ka noqdaan dadka deegaanka jooga ee ay ugu horeeyaan isimada iyo cuqaashu hadday daacad ka noqdaan wax ay kaga gudbi karaan way samaysan karaan oo local ah way samaysan karaan aragtida saasaan qabaa xuseen maxamed tuurtuur afhayeenka Buuhoodle Shabeelle ayuu ahaa oo goor weydii warramay aad baad u mahadsantahay gudoomiye